markii aad halkan timaaday ayay balaayeen musiibo oo dhan dhacday. halkan sanooyin fara badan waxaa ka jirta sheekadaas. waxaa dhacday maalmaha ka mid ah inuu dab ka kacay goobtan, laakiinse nasiib daro arday aad u fara badan ayaa ku dhintay halkan, isla markaasna waxaa la waayay wiil yar oo noqon meydkiisa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta qiimaha badan soo dhowaada, waa mar kale qisadeenna qaybtii labaad. intaana qisada qaybta labaad bilaabin, waxaan ka xusuusinayaa inaad kanaalka subscribe saarto si aad uga mid noqoto asxaabta qiimaha badan ee halkan ku xidhan. qisada qaybtii hore waxay inoo maraysay annaga oo macallimadu naga soo saartay qolkii ciqaabta, isla markaana waxaan u soconnay qolka hurdada. waxaanu tagnay qolka hurdada, waxaan si keediisa u aragnay ardayda oo aad u wada naxsan. waxaan ku dhahay maxaa dhacay, sidee wax u jiraan? waxay dhaheen taamit ayaa nooga sheekeeyey qisooyin cabsi badan. waxay dhaheen waxaa kaloo noo sheegay inay halkan ruuxaan ku nooshahay. anigu waxaan ku dhahay waxba kama jiraan waxa uu ka sheekeynayo. waxaan iska tegay sariirtaydii, isla markaasna waxaan ka fikirayay waxyaabaha dhici doona. ardaydii basma ayaa ii timaaday, waxayna igu dhahday waxaan doonayaa marka aad baxayso inaadan iga tegin. laakiinse anigu waxaan ku dhahay anigu ma bixi doono ilaa aan ka ogaado sirta qaylada wiilkira habeen walba aan maqlo meesha ay ka timaado. basma waxay igu dhahday ma isku raacnay arrintaas in aan wax walba ogaano? anigu waxaan ku dhahay haa, waan isku raacnay. waxaa timaaday macallimadii, waxay dhahday arday dhegaysta, maanta wixii ka dambeeya qolka hurdada kama soo bixi kartaan. haddii aad cunto u baahataan ama wakhtiga cuntada markay gaadho, halkan ayaa laidigu keenayaa, halkan ayaadna ku dhex cunaysaan. taamita ayaa hadlay, wuxuu dhahay macallimad, haddii aan u baahdo inaan soo xaajo guto suuliga uma bixi kara miya? waxay ku dhahday macallimadii koox ayaa isku raacaysaan, mid ka mid a macallimiinta ayaana idi raaci doona. isla markaas basma ayaa ii soo dhowaatay, waxay igu dhahday sidee wax u dhacayaan? waxaan ku dhahay waxaa laga yaabaa inay cabsanayaan, laakiinse wax walba waan arki doonaa. habeenkii marka la gaadhay waannu seexannay, isla markaas si keedisa waxaan u maqlay codkii, laakiinse hadda codkii waa kuu duwan yahay codkii hore. codka hadda aan maqlaya waa qosol aad u dheer. si degdega ayaa u kacay anigoo isla markaana isla feeri. waxaan istaagay daaqadda, laakiinse waxaan arkay wax lama filaana. dab ayaan arkay meesha ka kacay, isla markaasna waan qayliyey. macallimadii waa ay soo kacday, ardaydii dhammaan way soo wada kaceen, isla markaasna dabkii waa la demiyey. ardaydu xilligaas aad ayay uga cabsanayeen. anigu waxaan isku dayay wakhtigaas inaan xagga u cararo uu qosolku ka dhacayo, laakiinse waxoogaa markaan socday qosolkii oo dhan waan waayeyba. macallimadda ayaa ila hadashay, waxaana igu dhahday riyaad, ma waxaad aragtay qofka dabka shiday? sidee wax u jiraan? anigu waxaan ku dhahay macallin, waxaan arkay ma lahan. macallimaddii waxay dhahday adigu seed ku ogaatay waxaan oo dhan? isla markaas anigu wax jawaaba ma aanan siinin. anigu waxaan iska ogaa inay rumaysanayn waxaan u sheego, maxaa yeelay hore ayay iga rumaysan weyday markii aan u sheegay inuu wiil yari ooyayo. arrinta oo dhan waxaan la wadaagay basma, isla markaas wax kasta waan u sheegay. waxay dhahday haddaba wiilkii ooyaya waxaa laga yaabaa inuu yahay qofka kabaha xaday, isla markaasna dabka hurinaya. subaxii ayaa la gaadhay, isla markaasna waxaa noo timaaday macallimadii. waxa ay noo keentay qureec. si keedisa waxaa loo helay kabayihii taamid mid ka mid ah, isla markaasna waxaa laga helay sariirtiisa hoosteeda. macallimaddu waxay dhahday taamid, adiga intaad kabahaaga qarisay ayaa dusha iyo dembiga ka saartay riyaad. isagu wuxuu dhahay maya macallin, anigu waxaa ma samaynin, rumaysta. anigu laakiinse waan u maqhraati kacay oo waxaan dhahay taamid xalay waa uu seexday, wax socsocodana kumaanan arag. isla markaas macallimad waxay dhahday haddaba adiga ayaa sidaas sameeyey? maya ayaan dhahay, anigu wallaahi ma samayn sidaa macallimad, laakiinse waa iga yeeli weyday. waxay dhahday haddaba waxaad garanaysaa qofka meesha waxaan ka sameeyey iyo qofka kabaha xaday, waad sheegaysaa qofka dabka shiday. macallimaddii waxay ii kaxaysay qolka ciqaabta, isla markaasna waxay gu dhahday markii aad halkan timaaday ayay balaayeen musiibo oo dhan dhacday. waxaan kaa rabaa inaad wax kastoo ogtahay ii sheegto. waxaannu qarnay midiyihii iyo wax kastoo dadka dhibaato lagu gaadhsiin lahaa si aan uga taxadirno carruurta ku nool goobtan. waxaan kaa rabaa riyaadow inaad wax kasta ii sheegto. anigu waxaan ku dhahay wallaahi waan kuu dhaaranayaa macallimad, anigu waxba ma samaynin, waxna kama og waxaan ka socda meesha.
waxay dhahday macallimadu xalay waxaa la shay dab aad u weyn habeen dambana waxa dhici doona anagu ma ogin waxay dhahday waxaad ogaataa haddaa wax walba og tahay ii sheegi weydo in aan goobtan kaa wareejin doono isla markaasna meel kale aan ku geyn doono waana iga sii dhaqaajisay anigu wakhtigaas qolka ayaan cidlo ku noqday fikir badan ayaa markaa maskaxda ka dhex guuxayay waxaan isweydiinayay sidaad goobtan uga baxdaa qolkan caawa sooga baxdaa si aad u ogaato codkaada habeen walba maqli jirtay laakiin sanad siib darro ma aanan ogaan wax coda habeenkaas maxaa yeelay qolka ayaan ku waabariistay subaxii markii la gaadhay waxay macallimadu ii keentay Basma si ay su'aalo fara badan ii weydiiso Basma waxay dhahday adigu wax ma maqashay anigu waxaan ku dhahay waxba ma maqal xalay laakiinse adigu wax ma maqashay waxay dhahday anigu sidoo kale wax ma maqal laakiinse dhammaan ardaydu adiga ayay kaa shakisan yihiin waxa ay moodayaan in aad kooxo kale xidhiidh la leedahay isla markaana sidaa aad uga wadaan dhibaato goobtan halkan aan ku noolnahay dad fara badan oo taajirna ayaa maalgeliya lacag fara badanna waa ay ku bixiyaan laakiinse haddii ay ogaadaan dhibaatada meesha ka socotaa lacagtoodu waa ay jiranayaan si keesa waxaan u maqalnay macallimadu aad u qaylinaysaa isla markaas xaggayga ayaan u soo yaacnay waxaan ku arnay goobta waxa laga naxo gidaarka waxaa ku qoran haddii aad meeshan iga saari weydaan dhammaantiin waan walaalaynayaa gidaarka waxaa suran midi dhulkana waxaa daadsan midiyo fara badan annagu waanu naxnay waxaan isweydiinay sidee wax u jiraan macallimadii intay si carle ii soo eegtay ayaa waxay dhahday riyaadu maxaad rabtaa oo waxaan oo dhan u samaynaysaa anigu waxaan ku dhahay macallimad ma samayn anigu waxba waxay dhahday Basma adiga ayaa caawiyay ninkaas oo maahan wax walbana adiga la sameeyaa waxay dhahday Basma aniga iyo riyaad mid kale toona khalad ma lahan wax dambi oo galnimo ma jiraan waxaan u soo dhaqaajinay si aan u seexano laakiin habeenka oo dhan macallimada ayana ilaalinaysay waxaanu maqalnay haddana codkii ilmihii yaraa isla markaas si taxaddar leh ayaan u soo baxnay waxaanu daba galnay codka meesha ka imanayo macallimaduna waa inaga horreysay waxaan hor carray ilmo yaro aad u noqon isla markaasna waan soo daba soconnay waxa uu si kiisa u galay waxa uu galay ceelkii isla markaasna waxaan xaqiiqsanay inuu codku ka soo baxayo ceelka macallimadu waa ay suuxday naxdin awgeed isla markaasna Basma ayaa caawinaysay anigu waxaan qaatay tooshkii ballagii ayaan ku qabtay tooshkii waxaan arkay waxaan ka naxay lafadad ayaa ku jira isla markaasna Basma ayaan u yeedhay waxaan ku dhahay kaalay aragti waxa meesha ka jire waxay dhahday maya anigu waan cabsanayaa mana arki karo waxa ka socda meesha macallimada ayaa si keesa u soo kacday waxayna eegtay ceelka isla markaasna waxay aragtay waxa ku dhex jira isla waqtigaas anagu goobta waan ka soo dhaqaajinay macallimadu waxay dhahday waxaa jirta qiso ku saabsan ruuxaanta laakiinse anigu ma rumaysanin halkan sanooyin fara badan waxaa ka jirta sheekadaas waxaa dhacday maalmaha ka mid ah inuu dab ka kacay goobtan laakiinse nasiib daro arday aad u fara badan ayaa ku dhintay halkan isla markaasna waxaa la waayay wiil yar oo noqon meydkiisa anigu waxaan ku dhahay waxaad ka warantaa macallimad ceelka iyo arrintiisa waxay dhahday ceelkan waxaa hore looga maqlay cod aad u dheer isla markaas maamulka goobtan waxa uu amray in aan loo dhowaan waana la daboolay Basma waxay dhahday waxaa laga yaabaa haddii wiilkii hore la waayay inuu halkaas ku dhuuntay macallimaduna waxay dhahday waa ay dhici kartaa subaxii marka la gaadhay waxaa goobta yimaaday askar si ay u baadhaan goobta waxa ka socda waxaa loo yeedhay sheekha waxaa la weydiiyey sheekh maxaa ka jira ruuxaanta sheekhu wuxuu dhahay wax ruuxaan dhaha ma jiraan laakiinse qofku markuu dhinto waxa uu aadaa xagga Rabbi subxaanahu wa tacaala maalintaa wixii ka dambeeyey waa la xidhay goobtaas isla markaasna annaga waxaan la kaxaystay qoysas kuwaasoo lacaga fara badan haysta aniga iyo Basma waxaanu hayn kuwa mar walba soo booqdaa wakhtigii aan weynaanayna waanu is aroosannay isla markaasna Allah mahadii ubad ayaanu kala helnay waxaan iska ilownay wax kasta yaraanteeda aan soo marnay haddaba saaxiibayaal qisadeedu halkaas ay ku dhamaatay haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalka Lexar haddii aadan weli ku soo berina ku soo dhow kanaalka si aad ula socoto qisooyinka faraha badan ee halkaan soo gelin doono waxaan aad ugu mahadcelinayaa asxaabta qiimaha badan kuwaas oo mar walba daawada qisooyinka halkaan soo gelino waad ku mahadsantihiin waqtigeena qiimaha badan aad ku bixiseen tan iyo intaan iskaga imaano qisada xigta sidaas iyo amaano Allah